diintiisu rabbi wax ku siinaya tabaaraka wa tacaala markastoy sii duqowdana ixtiraamkeedu waa sii weynaanaya wiilasheeda iyo gabdhaheedu khadam iyo adeeg waxay u noqonayaan iyada hoosteeda ku qasban sidaas daraadeed ayaa wax way hooyadu diinteena dhexdeeda mujtamacaadka muslimka dhexdooda hooyadu waa boqorad hooyadu waa malikad iyadoo cajuuso oo habar ahoo sariirta ku urursatay baa kulli laga wada amar qaadanaya wiilkeeda madaxda ah ee ummadda malik iyo boqorka u ah iyada markuu u yimaado iyaduu ka amar qaadanaya iyadaa boqor u ah wiilkeeda caalimkee magaca leh markuu iyada u yimaado ilmo yaroo hoosteeda ku ciyaaraya way amarkeedu qaadanaya wiilkeeda mutacallimkee aqoon-yahankee shuhrada leh markuu iyada u yimaado addoon u adeegayuu noqonaya hiya almalika inta kaleeta ayaday adeegayaan u yihi waa habar ku urursatay sariirta ku urursatay xataa iskaba dhaafe caqligeedu inuu jooge caqligeedu hadduu tagoy maanka weyda xataa ayadaa la hoos joogaa ilaa qabriga lagu hubsado wataa diinta rabbi tabaaraka wa tacaala waxaad garab dhigtaan ummadahan maanta ku faanaya xadaarada iyo ilbaxnimada ku faanaya qiyamka iyo dhaqan wanaagga ku faanaya hooyo meeshay dhigeen iyo aabbo meeshay dhigeen iyo diinteennu meeshay dhigtay isu fiiriya reer galbeedka iyo dhaqamadooda mar walba doonaya in iyaga la raaco ugu faanaya annagaa adduunka horumar gaadhnay waa in annaga nala raaco dhaqankii ugu wanaagsanaana annagaa dejinnay kii rabbi mid ka fiican baanu keennay u fiirsada hooyo iyo aabba xaggay dhigeen ilmuhu markuu qaan gaadho ku rafaadaan koriyaan si walba maraan markuu ilmuhu qaan gaadho hooyana ma yaqaano aabbana ma yaqaano waxaad moodaa xoolaha bini aadamku dhaqdo ayaa ilmuhu intuu hooyadii u baahan yahay oo naaskeeda noogayo ayuu ku daba xidhan yahay laakiin mar hadduu ka kaaftoomo oo xoogaysto waxartu hooyadeed ma taqaano orgiguna hooyadii ma yaqaano dibiguna hooyadii ma yaqaano waa ka madax bannaanaaday xoolahaa kama yaqaano ilaahay baa wuxuu horey u yidhi tabaaraka wa tacaala in hum ilaa kalancaami bal hum adal waa xoolahoo kale bal waaba ka liita waa ka dalaal badan yihi hooyo xaggay dhigeen hooyo lama yaqaano markay intay xoog leedahay oy ordayso iyadaa adeegan hadday wehel u baahatana ey baa wehel u ah qolka iyo falaadka ay degan tahay wehelkeedu waa ey baa wehel u ah isagaa la nool marmarka qaarkood intuu baahdo ayuu cuni ayadoo waa hore uu cunay baa laga warheli ey baa hooyadii wehel u ah midda ugu rooni waa midda inta la qaaday meelaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo lagu tuuray weeye halkaasay ku dayacan tahay dad aynan dhalin shaqaale ah aan u danqanaynin aan u naxariisanaynin baa gacanta ku haya oo saxarada ka tiraya oo kaadida ka tiraya oo kahanaya oo dhibsanaya oo shilinkooda uun ku ilaashanaya halkaasaa la dhigay marna ey baa wehel looga dhigay marna meeshaasaa lagu tuuray carruurteeda midka ugu baarisani waa midka xilligada munaasabaadka waraaq u soo dira tahniyad ah ciid baa la gaadhay hooyadii oo Sweden joogto Mareykanka waraaq uga soo dira boostadu u soo dhigayaan waa baarikaas waxaa ka sii baarisan ninka intuu soo tago u yimid oo soo booqday oo intuu salaamay ka laabtay waa baari ma been baa la isu sheegay diinta islaamkuna halkaasay geysay boqoraday ka dhigtay oo cid walbay hoos geysay hooyo markay duqowday ayaguna halkaasay dhigeene labada jidkee baa saxsan diinullah tabaaraka wa tacaala andimadeeda iyo axkaamteeda iyo xuquuqdeeda waa diin rabbi ka soo degtay midana waa mid bini aadan malmaluuqo gacantiisa ku samaystay waliba bini aadan gaal oo kaafira oo ilaahay aqoonin tabaaraka wa tacaala sidaas daraaddeed inaynu waalidkeenna ka dadaalno qiimihiisa garanno asaga aynu mar walba ixsaankiisa iyo ridihiisa ku dadaalno taasi waa daruuri waana laga maarmayn haddaan ilaahay ridihiisa rabno jannadiisa rabno aakhiriya adduunba wanaag doonayno halkaasay ku jirtaa qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum